qur'aanka alle waa daawo lagu tacaali karo wax walba wuxuuna alle ku sheegay qur'aankiisa wanunzilu min alqur'aan maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu daalimiina ilaa khasaara alla qur'aankiisa wuxuu kusoo dejiyey daawo iyo naxariis daalimiintana uma siyaado ilaa khasaaro maahane iyadoo taasi laga duulayo ayaa culimmada masjidusalaam ee magaalada joor qabsadeen kulan qur-aan akhris ah oo socon doona muddo toddobaad ah ka oo ujeedkiisunu yahay in looga hortago cudurka corona oo kusii faafaya dunida oo idil kii ay isugu yimaadeen culimmadiisii odayaashiisii akhyaartiisii markay isugu yimaadeen waxay go'aansadeen haddii ilaahay raalli ka noqdo in 7 maalmood qur-aan lagu akhriyo masaajidka gudihiisa inta jameecada ku xiran masaajidka masjid salaam waxaan go'aansanay in 7 habeen aan ku akhrisanno ujeedada aan u leenahay inaan ku akhrisanno waxa waaye cudurkan maanta caalamka ku faafay ee ka soo bilowday dalka Shiinaha ka soo bilowday ilaa caalamka meel kasta uu gaarin 5 qaaradood aysan jirin ayaan rabnaa Soomaali ahaan in aan uga hortagno wax looga hortagayno waxa waaye waa quraanka kariimka ayaa looga hortagayaa quraanka maxaa yeelay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'miniin ayuu ilaahay quraankiisa kitaabkiisa ku yiri wax kasta ee dhaco ama jir ha noqoto ama dhibaatooyin kale ha noqdaan ama abaar ha dhacdo ama si kale waxa u dhacaan waxa kaliya oo looga hortagi karo waxa waaye waa quraanka kariimka marka haddii aanu nahay annaga degmadan Jowhar gaar ahaan xaafadda Kulmis laanta Buulomakiino annaga oo macnaa ka tusaale qaadanayno culimada gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar leesna faray in la akhristo quraanka kariimka ah si looga badbaado dhibaatada hadda socoto cudurka hadda socdo ee caalamka dhan uu qaatay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in aan quraankaas kaga bixi doono aan nabadgelyo ku heli doono caafimaadna aan ku heli doono waxaan ilaahay ka baryaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inuu cudurkan ina soo gaarsiin ummadda muslimiinta meel kasta oo joogaanna waxa waaye quraanka la akhristo hadda waxaa la yiraahdaa gacnaha la iska dhaqo maxaan ku leeyahay marka musqusha la galaayo marka laga soo baxayo raashinka marka la cunaayo anaga dad islaamaan nahay mar walba 5 salaadood ayaan weyse qaadanaa gacmaheena waa dhaqanaa kaliya inta naloo sheegay dhaqaatiirta ay sheegayaan ama culimada ay sheegayaan waa wax jir sababta waxa waaye cudur kasta wuxuu leeyahay ka hortag ayuu leeyahay haddii laga hortago waxa waa cudurkaasi waxa waaye kuma soo gaarayo marka anaga quraanka kariimka ayaan uga hortagaynaa insha Allah biidhnillahil kariim nadaafadana waa lagu dadaalayaa فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الحمد لله إلهي أيام هاد إسكال جل جلاله نقدر ضد إسلام عنك تاسي ونمعد إلهي سبحانه وتعالى إلهي نسيه نمعة الإسلام قرآنك هدي إلهي سبحانه وتعالى وحو كسو دجيه عافمات هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين وحاد وجهك ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ما هنا ظالمين توحكل كل في مايان لكن مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى وحو ودقي عافمات يهنون معركتا سيداس لأجل كذا أنا وحانو أغرسنينا إلهي سبحانه وتعالى إنه نوهنونيو وإلهي سبحانه وتعالى عافمات نوصيو سي عذر كان أدونك وريقاية إلى اللي من السلام كرتين أنا وحنا ضد إسلامه مساجدك والحرية للي أنا وحنا ضد إسلامه سيداس لأجل كذا إلهي سبحانه وتعالى أيان برينا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا هدي أن قفنوا إلهي سبحانه وتعالى أيان أنخونينا إلهي سبحانه وتعالى أيان هو كان سمينا مارتا جل جلاله أسيغان مسكودي بينا سيداس لأجل كذا قرآنكو وحانو آخر سنة إنه إلهي سبحانه وتعالى نقبت باديو وإلهي سبحانه وتعالى نوعاف ماتسيو إلهي سبحانه وتعالى أنكو قرقار ويديسنو إلهي نوهنونيو ولجددس أيان آخر سنة ميل لو ناخذ مجرته الا ففروا الى الله الهي سبحانه وتعالى ايا لو عرريا الهي سبحانه وتعالى ايا عررينا الهي ايا برينا الهي ايا كالم ويديسنينا الهي ايا عافمد ويديسنينا annagoo culimadii kamid ah masjidka gaar ahaan xaafadda Kulmis laanta Buulomakiino waxaan isku qaban qaabinay 7 habeen oo kaamil inaan akhrisano quraankeena kariimka ilaahay noo soo dejiyay fafirru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin
alla xaggiisaan u cararaynaa dhibaatooyinka laga sheegaya caalamka iyo adduunka laga sheegaya cudurka la yiraahdo koronaha ee soo degay oo ka soo bilowday dalka Shiinaha wadamada Mareykanka meel kasta soo maray annaga inuu ilaahayna mootiyo ummad islaam ahaan nahay noqoshadeena waa alla xaggiisa dhibaato walbo timaadana ilaahayaan ku aqoonsanahay allahna u laabanaynaa waxaan isku qaban qaabinay 7 habeen inaan akhrisano quraankeena kariimkoos ilaahay noo soo dejiyo waa daawo markay wax waliba quraankan kaga hortagaynaa cudurka corona ayaa ah cudur markii ugu horeysay ka dilaacay wadankaasi Shiinaha waxaana hadda uu ku sii fidayaa dalal badan oo caalamka ah iyadoo dalalkaasi uu kor u dhaafayo 170 dal waxaana sii korortay tirada uu dilayo iyo dadka uu asiibayo Saadax Khalismaan dalka TV Jowhar.